dhammaan asxaabta intaan friends ku nahay social mediaha iyo intaan friends ka ahayn oo isticmaasha marka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahay Soomaaliyeed, clipkan waxaan u soo duubay inaan talo inka siiyo. kulay talo iyo waanaba waa la kala qaataa. Soomaalina maxamede dhibaatada way soo badanaysaa. Problemka taagan waa ujeedaan. Hadda Kenya dhibaatada ka socota, gabdhaha lagu xadaayo, lagu afduubanayo, la jirdilayo, waad aragteen meel kasta Soomaali inay ku dhibaataysan tahay. waxa ugu badan la jiidayo, waxa ugu badan social media la keeno, waxa ugu badan dhibaato haysata, waxa ugu badan isku dhagan iyo dirka ugu badan loo geysta gabdhaha waa gabdhaha Soomaaliyeed wadan kastaba. waxaan leeyahay ani ahaanteeda on tala walaashin ahaan ka shankaroon aan tala inka siinaya gabar kasta abaayo. horta marka hore meesha aad aadaysid min fadlan walaalkaaga wado, inkastoo qadarka aan la celi karin oo wax walba qadar ay yihiin, kullu shay maktuub min cind Allah ay yihiin, haddana dadaal buu Ilaahay ku yiri, taladan Ilaahay saaro ma khasaaraysid insha Allah. tan labaad, gabar la dilay ama qof la dhibaateeyay ama mid la kufsaday kulli horta nagu soo bateen. midda hadda taagan oo gabdhaha Soomaaliyeed lacagta loo weydiisanayaan, Soomaalina maxamede waalidiinta la hadlayaa, walaalaha la hadlayaa, lacagahan ajaanibta aad barteen aa barbalemka keentay. ugu fiirso hadeertaan dalka Turkiga wuxuu ahaa waxay ahaayeen wax iska jaban. maanta guriga waxaa lagu leeyahay Soomaali maanta ahaa intaas waay. meeshii guriga $100 ka ahaa 200, 300 way sii socotaa sheekada. isbitaaladii Soomaalida waa laga macaashayaa. waxaa laga yaabaa qofkan jiro yar oo iska basiida inuu qabo, lacag badanaa lagu daalacaya, asagii miska celi karo, ma yaqaano discount ii sameey, ma dhahayaan wax walba sankay ka saaran tahay, lacagtoodii la arkay. marka qofkii qof Soomaali helaa wuxuu aaminsan yahay inuu lacag helay. maamo kaleeto waxaan arkaya wiilkayga xiran, inaan arko lacag, inaan ku arko $200 keen wiilkaaga waa arkaya leedahay, waa la soo tusiyay 5 daqiiqo kadib waa lagu soo deynaya leegu yiri wiilkaaga $30,000 dhib. hadda $30,000 maaha 30,000 shilin Soomaali. waa dhiibay tiri hooyo adiga khaldan. $30,000 lacag yar maahan, lacag dhow maahan, lacag fudud maahan, mid biri iyo maanta si fudud lagu shaqeyn kara maahan. adiga hooyo qaldaneed. lacagtaada markaa bixinaysay, wixii lacagta ku weydiistay, meesha lacagta ku bixinaysay kulli maxkamad horteeda inaad ku bixisid ayayd. teeda labaad, hooyo wiilkaaga hadduu dambi lahayn, aada dambi ku ogeen, hooyo macaanto inaad lacagba bixisidba ma inaad maxkamadda ka sugatid ay ahayd. qofka markuu lacagta laga qaato, dambigin wiilkiisii la geliyay dhibaato waa 2 jabaa ku haysata. jabkii lacagta ee hantidaadii aad ku weysay iyo wiilkaagii ee 9 bilood waday ee intaas sano soo korinaysay aad haddana xabsidaa in lagaaga xukumo. anaga horta Soomaalihan ma ogi, ana ahaanteyda ma ogi, arrintaas ma arkin. laakiin hooyo gabadhan oo hadlaysa iyo maamada waa arkay. $30,000 madaxa ila xanuunay, been ma sheegayo. $30,000 waa kuu soo deynaa isii, markaa ii soo deysid ii keentidaan ku siinaya. hooyo inaad dhahday ahayd. dhibaatada ugu weyn anagaa isku geysano, dhibaatada ugu weyn anagayna haysataa. intee naga haysataa ma fahmi kartaan. gacanteena, caqligeena yar. Soomaalina maxamed u fiirso, gabadha hunguri yara qaaday, nina lacag soo turtuuray, mif waad gadinay. maanta labaad meel cidla lagu balansana, kadib sida rabaa laga yeelana, waa la dilaa. heblaay waa la kufsaday, cadaalada u baahannahay, gabadhaydi saana la yeelay. gabadhaada hunguri qaada hooyo. okay, waxaan arkaysaa daraagiskii iyo dadkii maskaxdooda maandoorihii bedelay
cunug yaraa dirsanay adeeg waa lagaa dafaa, waa la kufsanaa. mucjisada iyo musiibooyinkan batay badana anaga u sababa. carada rabbi nagu socoto anaga u sababa. ma fahmi kartaan? Soomaaliyey waa in jeclahay xisaabtamo, hala xisaabtamo. inta meel la fadhiisto wal qof walba maskaxba ilaahay siiyay ku xisaabtan, ku fikir dhibaatada intay ka socoto hala dhaho. wal ogaana meesha ka socoto. mid kale, Kenya hadda ganacsiga ka bilaab, gabadha waxaa la yiri faraha laga jarjaray, wajiga laga bedelay, weliba $50,000 sii rabaana la yiri. hay ayaan dhaweedada saas u haysteen, lacag markay ka qaataan qofku way dilayaan ma soo deynayaan, because waxay diidayaan in fara laga qaado. naftaadii aad adigu dhashay, walaasha ama walaalka iyo maalkaaga waynaysaa. meel kasta tagtaan adduunka fiiri, ajaanibta waxay sameeyaan. ajaanibtan qolooyinkan cadaanka ah iyo ajaanibta nooc kastay tahayba wadamadan kale, lacagta si fudud loogama qaadi karo. hooyadeeday ka tahay. markuu meesha qaaliga ah uu fiiriyo waa ka tagaya. madka qaaliga gadanayo waa iskala hadlaya. Soomaali ayaa qurxan yahay dhag kan waa dhag $10,000 la rabaa dhag. lacagtaada waa gubatay, mise u gubatay aan lacagteedii hooyoy lacagta way gubatay. ninkii wuxuu igu yiri hooyoy lanka ever waa gubtay. war anaga is cuneyno, anaga is qayaaneyno, anaga wax walba sanka naga saarihin. lacagahaaga marka aad adigu wax inaad qabatid ama wax lagu qabta rabtid, ayadoo dhan ha wada dhiibin, ayadoo dhan ha iska wada horumarinin. almiino wax un caynso. tan labaad, cagahaaga ka adkaa gabarey wiilow, kulli Soomaalina Maxamedey waa in jecla, lugihiinana ka adkaada. dhibaatada meeshan ka jirto ilaahay ha naga dulqaado. dhalinyaraan nahay, qaar waxay nagula dagaalamayaan ganacsi, maanduuriyaal ay keeneen, maxaa dhahay cirbadii xanuun baabiyaha in laisduro oo drugs ahaan loo isticmaalo. maxaa kaleeto taabuu balaayo ilmihii waxbarashada noogu jiray oo dhan iyo gabdhihii mustaqbalka hadda la sugaya inay soo baxaan, kulligooda badaa lagu shubuya. taas iyadoo nagula dagaalamaya maskaxdii markii la bedelay, kufsi waa imaana, dil waa imaana, dhac waa imaana, way wax ka sii badanba. ilaahay naguma keeno. walaalayaal social mediaha dhibaatada taagan, xataa ajaanibtana arkayso wayna fahmeen. fiiri ugu fiirso, ninbaa gabar aan aqaano facebookeeda jabsaday, wuxuu yiri waa ku soo celin lacag isii. waa nin ajnabi ah. anigu waa yaabay. yaa warqaadaha dhahdo maya, waxaa iigu jiray waxaasaan ii ahay, facebookgee muhiim u ii yahay. $200 isoo diro dheh, labadii dartay European Union ku dartay. haddana muddo kadib wuxuu yiri $1,000 isoo diray. hadday dhihi lahayd markii hore anigu lacag kuma soo diraaye qaado, waxaa artina sameey, orod tag bax, hadday dhahdo ilaa moogta waxay kugu dhacay 1 sano ka weyn, wax walban way ku qoran yihiin, ma aysan sameyn. Soomaali lacag la ordaa la dhahaa, markii ordaan lacagta waxa soo suurtagal waayna cawaad la soo ordaa la dhahaa. marka hore ma celi kartid oo way la ordayaan, marka dambana way ku soo ordayaan cawaadkooda. marka Soomaalina Maxamedey, qofka mar waa qalad waa gali karaa, mar waa la gaadi karaa, mar waa qaldam, yacni ma qaldam waa ilaahay asaga qalad ku dhici karo, qalada laga gali karaa. laakiin walaalayaalo dhibaatadan arkaysin waxay noogu badatay, lacagahan sanka naga saaran, adduunka oo dhan nagala bartay. maalin meelan dukaan wax ka gadanayay, markaas anigu wuxuu igu yiri wasaa u gogonaya, waxaan dhahay kan maya qaali waa ka tagaa. kaalo yiri ada carab ma too dhahay, maya dhahay Soomaaliya ah. Soomaali ma tido, Soomaali data waa iga gadaleedo. wallahi la cadeem. hadda u fiirso Turkiga, dalka Turkiga oo dhan Soomaali waa laga nacay. wallahi la cadeem. Soomaali ma taa lu leeyahay, guri ma ka ijaarayna lu leeyahay. nadaafad darada, buuqa, khaylada, isdaba dudka,
20 qofood 30 qofood guri ku nool intaasaa looga cararay. Soomaali maanta ahaa guri makaa ijaaraya, suuqaa tagaysaa Soomaali maanta ahaa intaasaa la gadooyaa, kii oo 2 boqoteele ah 5 boqoteele waa. hay marka yaa isku keenay dhibaatadaas? Anaga. min fadlan walaalayaal waa in jeclahay dhibaatadaaneeto haysata Soomaalida, ilaahay ha ka saaro, idinkana iska saara. Salaamu calaykum.